maareeyaha dekedda weyn ee Muqdisho mudane Danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa maanta booqasho ku tagay saldhigyada ay ciidamada amniga gaar ahaan booliiska iyo kuwa hay'adda nabad sugidda qaranka NISA ku leeyihiin gudaha dekedda waxaana halkaas ku soo dhaweeyay taliyaha saldhigga hay'adda nabad sugidda qaranka iyo taliye ku-xigeenka saldhigga booliiska ee dekedda mudane Danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa saraakiisha iyo askarta ciidamada amniga uga mahad celiyay shaqada wanaagsan ee u hayaan dalka isagoo si gaar ah u bogaadiyay doorka ay ka qaateen ilaalinta amniga iyo habsami u socodka howlaha ka jira gudaha dekedda Muqdisho sidoo kale maareeyaha oo goob fagaara kula hadlay ciidamada amniga ayaa ku dhiirigeliyay inay si laba jibaaraan dadaalada ay ugu jiraan xoojinta amniga iyo ilaalinta xarumaha muhiimka ah ee dalka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta mar kale idin soo booqdo idin kormeero waxa uu imid inaan idinku mahad celiyo hawsha wanaagsan aa wadaan maalin iyo habeen aad ka shaqaysaan dekedda amniga aad sugaysaan aniga waajibka saar waxa waaye haddaad wax fiican samaysaana waa idin hambalyeynaya haddaad qalad samaysaana waa soo sheegaya marka hadda maanta waxaa u imid inaan idin hambaliyeeyo inaan mataqaanaa waxaa qabateen saa ogtihiin dekedda Muqdisho waa halbowlaha waddanka dhaqaalaha waaye waa meesha dhaqaalaha waddanka ay kasoo gelaysay waxay u baahan tahay shaqo adag in la qabto amnigeeda aad loo ilaaliyo marka ilaah ka sokow amaanta idinkaas kale habeen maalaha shaqaysaan ani waan idin arkaa idinku xataa arkeyna ayaa idin soo kormeeraa oo idin fiiriyaa waxaa qabanaysaan marka maanta kormeerkeyga wuxuu keliya aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin hawsha meesha hadda ka wadaan ka sii wada annagana ka maamul ahaan waxaa balan ah in xaqiina aan dhoorno idin siino idinka farxino haddii la yiraahdo marka waa mahadsantihiin mar kale gaashaan la dhexe Maxamed Aadan Shalaqbeen oo ah taliye ku-xigeenka dekedda Muqdisho ayaa maareeyaha uga mahad celiyay hogaamintiisa wanaagsan mudan maareeysa og tahay ciidanka dekeddu oo saldhigga dekeddu waxay u taagan yihiin har iyo habeen inay ka qayb qaataan sugidda amniga dekedda oo ah isha dhaqaalaha ama lafdhabarta dhaqaalaha dalka maareeye hogaamintaadu sida hadda muuqataba waxay ka qayb qaadatay in ciidanka saldhigga dekeddu ay noqdaan ciidan isku filan suga amniga dekedda ayagoo u qaybsan laba qaybood oo ah qaybtii amniga dekedda iyo qaybtii maxaa la dhahaa turbataariyada ama iskondarada hadalka dheereyn maayo booqashadaada iyo kormeerkaagu wixii amaamiira iyo faritaana iyo dardaarana adigaa iska leh annaguna waxaa leenahay fulinta